wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo maanta gaaray ceelasha shidaalka ah ee Jeexdin iyo Elale ayaa waxa uu socdaalkiisa ku weelinayay wasiirka shidaalka iyo macdinta ee Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya Injineer Takale Uma mas'uuliyiin kale oo heer deegaan ah iyo heer federaal. wafdigan ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay ceelasha shidaalka Kaalu iyo Elale waxaana halkaas salaan sharafeed kaga qaateen qaar ka mid ah ciidamada qaranka ee halkaas ka howlgala. madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo wafdigu hogaaminayay ayaa booqasho ku tagay ceelasha shidaalka ee Jeexdin waxayna halkaas warbixin kaga dhageysteen mas'uuliyiinta shirkadda shidaalka halkaas ka qodaysa ee Polychese ee laga leeyahay dalka Shiinaha. mas'uuliyadda shirkaddan waxay ka warbixiyeen heerarka kala duwan ee ceelasha shidaalka. madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar waxa mas'uuliyiinta shirkaddan kula dardaarmay in markasta looga baahan yahay inay soo gudbiyaan xogaha rasmiga ah ee la xiriira ceelashan. wuxuuna sheegay marka ceelashan shidaalka ay howl bilaabaan in fursado shaqo abuur ay ka heli doonaan bulsho badan oo deegaanka. wasiirka shidaalka iyo macdinta ee Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya Injineer Takale Ume oo asna ka hadlay goobtaasi ayaa warbaahinta uga warbixiyay ujeedooyinka socdaalkoodan oo la xiriiro የመጣንበት ዋናው ምክንያት በተለይ በሶማሌ ክልል ትልቅ የነዳጅ ክምችት እንዳለ ujeedada ugu weyn ee aanu deegaanka Soomaalida oo la og yahay in tan iyo intii aanan dalanin ay shidaalka iyo saliidda aydiinba qani ku yahay oo xukuumado badan oo soo maray ayaa waxaanu nimidnay inaanu eegno halka ay marayso shirkadda qodaysa annagoo xagga dambana ka riixayna ayay ujeedada iyadu tahay in aanu khayraadka dabiiciga aanu bedelo mid nafac u leh bulshada dalka. shidaalka dabiiciga ah imika meel fiican buu maraya walow saliidda aydiin ay weli wax badan ka dhiman yihiin. waxaana la dhameeyay daraasaadkii iyo cilmi baaristii saliidda aydiin marka la ogaado xaddiga uu mashruucani la ekaanayo ayaa maalgelinteeda la geli doonaa. aad iyo aad ayaan ugu rajo weynahay in iyadana la soo saari doono laakiin waxoogaa cagajida oo ka jira dhanka shirkadda ayaan rabnaa inaanu xalino oo aan shirkadda mas'uulkeeda u sarreeya waanu u yeedhnay markaan la kulanno ayaan dhibka si wada jir ah u xallin doonaa. waa saliidda aydiin oo keliya dhanka shidaalka dabiiciga ah meel fiican buu marayaa waana la sii wadi. maaha oo keliya khayraadka dabiiciga ah ee laga helay deegaanka Soomaalida balse sidoo kale deegaanada kale ee dalka khayraadka dabiiciga ee laga helay caqabadaha yaryar ee haysta intaanu dul istaagno ayaan si wada jir u xalinaynaa annagoo la kaashana kilada iyo cidda ay khusayso si aan uga midho dhalino qorshaha guud ee macdanta dalka maadaama ay macdantu tahay ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan ee horumarka dhaqaalaha dalka. marka si aan uga qayb qaadano qorshaha barwaaqada una horumarno dhaqaalaha dalka weeyi ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay macdanta iyo khayraadka dabiiciga ah. imika waxaan wada joognaa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar. shirkadaha gacanta ku haya oo ay Itoobiyaan ku jiraan si fiican bay u shaqaynayaan iyagoo ka faa'iideysanaya lana jaan qaadaya tiknoolajiyadda iyo farsamooyinka oo aan siyaabo kale uga faa'iideysan doono. dhinaca kale wasiirka xafiiska shidaalka macdinta iyo tamarta ee dowladdeegaanka Soomaalida oo asna halkaas ka hadlay ayaa si guud uga warbixiyay ceelashan shidaalka ee maanta wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida ay booqdeen. wafdi heer federaal iyo heer kilila ayaa saaki waxaan ka soo kactanay Jigjiga iyagana kuwa federaalkana sabay ka soo baxeen. ujeedada qorshaha waxay ahayd in la soo booqdo meelaha shidaalka goobaha shidaalka sida Elale iyo Kaalub. marka ujeedada ugu weyn oo marka loo socday waxay in la ogaado bal xaaladda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin ceelashan iyo shaqooyinka socda. marka waan soo marnay meesha la yiraahdo Kaalub waxaan ogaanay in shaqooyinkii waqti xaadirkan sababada ay ku sheegeen coronavirus dartiis ay u taagan yihiin. sidoo kale Kaalub iyagana waa nimid waxaan aragnay shaqo fiican oo la qabtay balse waqti xaadirkan hadda shaqo wax ka socda aysan jirin. oo maxaa la yiraahdaa marka wasaaradda shidaalka ee federaalka ayaa waxay qaadatay in mas'uuliyadda arrintan sidii loo dardargelin lahayo madaxweynaha deegaanka oo iska kaashanaya sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinkan shaqadan fiican oo la qabtay sidii loo meel marin lahaa ayaa maxaa la yiraahdaa la isla qaatay. marka guud ahaan ujeedada socodka marka qaabkaas uu ahaa in la ogaado bal waxay ku sugan yihiin xaaladahan shidaalka maadaama warar badan oo maxaa la yiraahdaa iska propaganda fara badan ay jiraan oo shidaalkiiba la aruursadaa boodada lagu raraa maxay wax la yiraahdaa ay jiraan oo iska propaganda waxaas waxba ka jirin. intaa marka la soo xaqiijiyo bal xaaladda jirta tiyadeena waa la xaqiijiyay in waxyaalo badan ay propaganda iska yihiin oo wax badan oo ka jira aysan ogaan si dhab ahna looga kuur galo bal xaaladda uu ku sugan yahay shidaalka
tiina waa la ogaaday marka haddii ilaahay yiraahdo dee waxaa dhici doonta in insha allahu tacaala iyadoo laysla kaashanayo federaalka iyo deegaanka laskaashanayo in lasii dardargeliyo sidii marka natiijadii laga rabay waa laga gaaray sidii loo dhammaystiri lahaa in la sameeyo. ceelashani shidaalka ayaa daboolka laga qaaday 28 Juun ee sanadkii 2018 waxaana lagu qiyaasay ceelashan shidaalka ceegaaga inuu gaarayo in ka badan 6 ilaa 8 trilyan cubic feet kuwaas oo marka ay howlgalaan si weyn uga qayb qaadan doonaan dhaqaalaha dalka iyo deegaanka sidoo kalena bulshada deegaanka si weyn uga faa'iideysan doonaan.